toddobaadkan iyo tiknoolajiyada waxaynu idiin haynaa sida mustaqbalka uu noqon doono marka aad dukaan ama bangi aad tagto iyo waxyaabihii ugu dambeeyay shirkadaha aflaanta online-ka ka bixiya cabdinaasir saxan soxo ayaa inoo haya kani waa wajiga cusub ee adeega macaamiisha shirkada ruush ah oo la yiraahdo Promopod ayaa soo saartay naqshada Robot C oo u eg robot nool kaas oo loogu talagalay inuu ka shaqeeyo dukaamada waxa laga dhigay sidii inuu u ekaado sidii qof bini aadam ah oo adduunka ku nool oo kale sida qof sax ah oo nool ayuu u hadli karaa wuxuuna muujin karaa dareenka bini aadamka uu kula sheekaysan karaa wuxuuna ka jawaabi karaa weydiimaha sidoo kale wuxuu sameyn karaa inuu kaarka bangiyada lacagta ku shubo lacag sida loo bixiyo ayaynu weli ka hadlaynaaye Facebook ayaa soo saartay hab lacag bixin ah oo la yiraahdo Facebook Pay waa hab lacag bixin ah oo digital ah kaasi oo inta adeegsato u ogolaanaya inay lacag xawilaan ama loo soo diro marka ugu horeysa habkani waxa laga hirgelinayaa dalka Mareykanka waxayna u egtahay in adeegani sidoo kale mustaqbalka laga heli doono barnaamijyada kale ee shirkadda sida Instagram-ka iyo WhatsApp-ka Disney ayaa soo saartay bandhigeedii muddada dheer la sugayay ee suuqa tooska wax looga daalacdo waxayna tartanka la soo gashay Netflix-ka iyo Amazon Prime Disney Plus waxay haysataa filimo badan iyo waxyaabo cusub maalinta la daahfurayo weli lama qorsheynin balse waxaa jira warar sheegaya cilada jira shirkadda ayaa sheegtay in ay heshay dalab ka badan intii la filayay maalintii ugu horeysayna waxa isdiiwaan gelisay in ka badan 10 milyan oo qof robotyadani lagu hale ee soconaya waa kuwii ugu dambeeyay ee macadka tiknoolajiyada Massachusetts waxaana la yiraahdaa harmacadyada yaryara way adag tahay in la burburiyo sidoo kalena xirfado dhinaca kubadda cagta ayay leeyihiin dhulka kala sareeya ayayna sida bini aadamka oo kale ugu socon karaan iyaga oo xitaa sameyn kara qalaam rogodka waxaana la rajaynayaa in ugu dambeyn robotyadani loo adeegsado xaaladaha gurmadka degdega ah marka ay masiibooyinka dhacaan